السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا الله قليق وسلامتين ملبو أدونك كجوكتان عاو وحا إنو هايا فيديو ورنتي سوشيال ميديا براها بالشدة آديات وقبصدي أنا waxaan jeclaystay inaan idin la wadaago wiilkan meesha aad ku arkaysaan waa ninka cadaanka ah iyo wiilka kaleetana waa Soomaali maxaa la yiraahdaa waa nin baraha bulshada runtii su'aalo diini ah wax ka weydiiyo akhriska quraanka iyo qiraa'ooyinkii waxyaalo saas ayuu weydiiyaa inta kadib waxa shaashada u soo galay ama shabakada u soo galay sida wada arkaysaanba wiil Soomaali ah oo ah ciyaal say wallah taqana ciyaal say wallah ayaa shabakada u soo galay kadib wuxuu weydiiyay bal quraanka ma noo akhrin kartaa wax kamid wax quraanka kamid ah ma noo akhrin kartaa leeyahay xarifkan kasoo yiraahdo waxaan akhrin karaa Soomaaliya adeeg waa ku aqaan in kastoo Soomaalida aad iyo aad quraanka u taqaano oo position fiican caalamka ay kaga jirto tartanme sanadada u dambeeyay 2019 ilaa 2022 tartan walba oo la qabta caalamka ayada u haysato oo aad arki kartaa hadalkii been maahan waadna baari kartaa Google ama maxaa YouTube ka fiirin kartaa bal aan wada dhageysana wiilkan kadib marka dhageysataan ani asaa tartami doona hadana mar labaad. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. What's your name? محمد. Muhammad from? Somali. From Somalia. ما شاء الله. I have a lot of people from Somalia watching. ما شاء الله. The question is. ما شاء الله. Like always, the question is, what do you want to recite from the Quran? I give you free. Okay. I will do Ayatul Kursi. Oh, nice. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam says the most powerful ayah in the Quran is Ayatul Kursi. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. wuxuu ku yiri Nabi Muhammad wuxuu yiri aayada Quraanka uu awood badan Quraan ku jirto waa Ayatul Kursi. marka horeyso shaydaanka iska naar baa yiri بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تفضل. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون شيء ولا يحيطون شيء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما الله والله أخي والله again الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحضون على طعام المسكين ولا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله بالله تالله كان عيال سي والله طاس أوايا runtii wuxuu dhigahayana waxa waaye wax ajiib ah waa runtii quraanka aad iyo aad ay u jijibiyay aayado kala soo qaato isku qabtay bal tartanka ani asaga aan sameyn doonana insha Allah taala waan rajaynayaa laba wiil Soomaali inaadan u kala eexan doonin koobkan aan ka qaadi doono aniga. recitation but ما شاء الله ولا يؤود one mistake ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. ما شاء الله بارك الله فيك. say something to people in Somalia. every Muslim. ما أخذ وجدير جبي أو حقنا إصرار لكن والله إن شاء الله أخي. ما شاء الله عبد اللطيف. runtii waxaa jira dad oo public speaker aanan ahayn oo meelaha qaarkood su'aalo marka lagu weydiiyo oo isku dhaxyaacayo isku yaani argagaxayo oo baasha ay ka kala daadanayso soo buuxata asoo maxaa la yiraahdaa ka dhisan aankii khibrad ahaan miskax ahaan dhan walba qofkii oo dhisan haddana waxa arkaysa way ka kala daadanaysaa baasha marka cudurdaar dambe ayuu sameeyay quraanka gartamiisho garanay laakiin cudurdaar dambe uu sameeyay wuxuu yiri nimiyo aniga culays badan baa isaarnaa waa ujeedin wax badan waa qalday yaa la ii qabanin iyahow xala caleeg runtii bal hadda ani aday ayaa tartamayno bal codkaaga amal ma keeni kariyo aad baad u cod qurxan tahay laakiin ana isku dayay
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم iga gaarsiiya walaalkaas qaaliga ah tartankan aniga asaga nagu soo kala saara waad mahadsantiin dabcan aan naftii qiraa'ooyinka quraanka aad uma garanay marka waxa laga yaabaa inaan meelaha qaarkood aan qalday ilaahay subxaanahu wa tacaala hanaga cafiyo marka waxaan jeclaystaa inaan fiidiyowga idinla wadaaga saaxiibada qaaliga ah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu